السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تشرفت له ومركلة إيه مقال عصب برتا أدنا قد أول سوا saxan saxo media group kan annaka ka maqnayn waa ku soo biirnay halkaas aad nagala socon doontaan idinkuna faraha nuuxnuuxiya dad dhiig la iska dhiga hay mise waa هذه ما بدل هذا الكابو وحوي دق ميل في عماد مرينيسا أصحاب سيشر جريا لو ذاك أصحابتنا هاي aadi ها أنا كميديا ده هالكن نقول أركان ها ساسي فرحوا لنا ولا iyo laakiin mid iyo يا بارين في شيء يقول بارين دتك official, جوا dadka ولا jooga يسعى xaggan جروب isugu imanaya, ha. واسكولا ميد ma dhib mala maxaa ba Soomaali weyn meeshan taagan maxaa baarin iyo laaka iyo keenay Haye. war Soomaali dhiig isgaliyo baalkan dhacsi hadaa arabtaan way qosol hadii qosol rabina guriina hurdo waa green ma chief ku daawada een aadi aadi هاي waxa la hayaa Berlin in badan baan doonay horta Imraan واقرت Berlin in badan baan doonayay barnaamij baan hayay aan doonay inaan ka wareysto هاي bal waxaan doonayay meel munaasiba inaan ku helo جهانس بقول هذا hawo chance baan ku hayaa واقرت waxaas lahaa bal hortay waqti ay xisaab xid samaysay heesaheed ba heesaha markii fanaanada ahayd heesaheed ba hawada ka batay بريء دافتي هاي هاي ayagoo Imsa hana. 200 oo kun maraya igu dambeysay Xisaab xidh ku samaysay, adoo xisaab xidh ku xaggaas samaysay ayagoo dunida. u si dhaafay waa ku daal waa iska daayo hadda wali lama tirin karo wali ma tiri koobina wali tiri timaaga ma koobina tirin karta damayda 200 oo kun baan ku yiri marka xagga u dhaafeen inta ka badan yaa tirin kara xasan aadan baan maqli jiray Soomaalida ugu heesa badan yahay laakiin imka Berlin marka ugu heesa badan xasan aadan baa iska xasan aadan caruur buu noqonayaa hadda meesha soo istaagay فناك وين samee heesayga tiradoodan ka wada anigu heesaha heesta kamid lijin inuu yahay waa ogahay hees kamid sheeg adoo horta maxaa dadka indha adiga ula timaada horta waa ku daay may adiga horta Imraan ilaa iyo waqtigii aan ogaa oo kugu dhaganayd hay hees aad qaado heesaheeda horta u badnayd badan qaadi jirtay yes waka aniga waka garabkaygii baa hala aniga wax badan baa ay jirtay leedahay ma qaadin ma arag be say ku qaaday maadigu anaga dhowr heesada ay lahayd arkayna qaadi kugu qabatay ay la heestaan shaafi baa iga maqnaa waayadan laakiin heesi aan waxaan doonaya horta barnaamijka aan wataa waxa weeye aan u imaawa inaan heesaheedii iyo halka tira koobkeedii waxeedii ogaado kulli kuwii aad u qaaday xataa aad markaa sheegda heestaan jacaylkeedan ku sameeyay adiga deeqa afar isku qorqoraysan haddaan xusuustay heesta hadda waa ka maxaa isla dhigaysaa waa dhigtay sheegda waa isla dhigaysaa birbu isku bedelay waa dhigtay haye waxaan xusuustay heestii ahayd kulma bashar kala qoob ana hanaga khaldin heesta naga aam horta adiga waxba ma ogid horta heesta qofka heesta aan lahayn qofka heesta aan lahayn waxa lagu garanayaa wakaas way ku dhigtaa bilan baraf qoob mansar saarin bashar kala maal boqboqan heesta hanooga ciyaarin ama isa soo sax ama iska daa miraha iyo laxanka iyo muusikada kulliba aniga ku laday shaafici baa iga daray way qaybsiisay man yada lahayn oo heesta waxaa la ninkii la yiraahdo niyo xasan laab saalax la soloolo waa ku ogahay ilaa isaga cabsi saalax ma ahane waxa iskala weersame la Abwaan weersame ale. allah maxamed rasul hadi way ugu horeysay ha waka shaafi meeshan ku qoray shaafi baa adigu goorma taagnaa dhageysatay yaanu markay soo baxday baan dhageystay 2020 intee baan kugu hayay qaad adiga adiidis computer wax lagu qorayay shaafi taa ka gudub oo haye mid kale weydii bal soo laba nin oo laba qof oo itixaan oo laba nin oo iga keenay Imraan horta adigu marka hore waxaan malaynayaa dadka marka hore soconayaan dad baa lugta ku dhaga dibir uga leexda ha hal heesa noo qaad haday hees samaysay heesaa kuwii hore baxsanay hargeysa markan baasha ka maro buraaga dheer dheer aan bilicsadaabay hurdayga timaada dawakaas yaa qaaday tan iyada iskale dee kuwii hore yadaa lahayn ore anaka waxaan noo sheegin allah u naxariiso maxamed saleebaan baa qaaday maanta u malaysin anigu tiriyey fannaankii weynaayo adaaba ay ku waay laaday waaye adigu laaday baalahamiya adu cadaynta ku Baal dhacay adu cadaynta horta iska baa daca lahaa miya ana lahaayo isaga qaaday ilaahay u naxariistay waan yaabay deemki waxaan moodayay ilaa inaad naga horta dima mid taqaan. baa moodayba baxsanay hargeysa ha taas waa ilaa dee tan marka adaa iska leh tan ana iska leh ha intii saalax wallahi saalax qaasim wuxuu joogaa fastros inta ku
haddana nin meel loo jooga ha isku sheegan Marta fastros buu jooga haddii ay saa tahay. laba saac buu inoo jiraa yaa ugu fog abwaaninta abwaalid ora anigu been bay ku taqaaneen marka waay ma been bay ku taqaaneen may hortay hortay mid fog doono anigu hortay sida imika uu Cimraan heestii hore anu aad ora qaadayso ma nagu kala kaxaynaysiin mise si caadi ah isku wareysanaa may wanaag baan isku waraysan Cimraan baan soo dhex galay hay'ada caadi noo wareysta waay qof dhan abwaanada heestii imika heesahaaga markaad Marlin heesahaaga markaad istaado xabad kala soo bax 200 oo kun oo heesood xabad qura kala soo bax teebad kala soo bax anigu horta heesaha waa tiriyaa haye oo ma qaado haye haddii aan qaadi lahaa magaceeda sheeg buu ku yiri kaliya mise ku yiri isoo qaad may magaceeda mid meel kala soo baxbaatay mid kaliya teebad ugu jeceshahay ana ku qaaday mid soo saar aniga day horta dadka wali qof abwaan inta la kulanteen waraysi ma ka qaadeen waanu ka qaadnay laakiin Cimraan baa imika halkan waxaan ka fahmay in uu leeyahay sheeg aan qaaday dadna codkii isaga lagu qabanaya isaga la oranaya moogta uu qaadaa la ilaaha illallah halka idinku horta waxa soo barataan sida abwaaninta loo warsa abwaan inta soo faris ku dhahay heesta ana la tan ana la lama ba arkaba wal adigu ka heesa way tiriyana baa inta dadka siiyaan ka helo taas tabaarlina markii hore waxaan soo jiray ku sheegaa dagaalkan Cimraan oo ku jira maaragtay Cimraan baa khaldan Cimraan baa khalad ka saaray hadda marka ana khaldan adigii baan lagu soo marinaynba waxba imika bal hal hees kaliya sheeg Soomaali weyn labada boqol ku malay xabad sheeg imisa Xasan aadan qaaday oo lahayd xasan aadan adigu hadii hadda aan been iska dhawro ila beledweyn lixdan adigu meelahaas beledweyn allahayo beledweyn allahayo hada yaa lahaa marka dad horta dhamaystir horta maxay tahay yaa lahaa horta beerlula allahayo belayada hareer mari yaa lahaa de heestaade heesta dayaa kale de annaka de yaa nagu ogeydo kale maxaa qofkan horta Cimraan waxaan heesaha inta teeba kamid ahayd taasay dhahday marka wax maxay su'aashan kale anigu ka yaabay ma ogtahay sug marka qofka do fo animan libatu leeyaho abewan del mada darartina waransoday yaa la heestaas laxan kaasan garanay horta laakiin may horta hadda taa beenta xagga dhinac mara maartay abwaan saaxiib ahaan jirnay abwaankaas lahaa laakiin meeshii lagu qorayay baan joogay wata may tan sheegato may tan sheegato macnaha tan hanuuniya lahaa hanuuniya ma abwaan buu ahaa abwaan buu fanaan buu ahaa laxmiis buu ahaa kamaan loo ahaadi maya hal abuur iyo abwaan labay kaliya abwaan sangub iyo abwaan hadraawi iyo dhoodaan iyo Allahu naxariista nimankaas ninka la yiraahdo Sangani iyo dacar iyo ragga waaweyn de ma garanaysaa abwaanti ma hadde iyo Xuseen Faarax raggaas abwaan ahaade wixii kale to ma garanaysaa adigu dadka lagu ma dhihin ku tuma moogtay Soomaaliya dhan ba abwaaniin noqonaysa hadii halka soo istaagaan iska daa wax kale laakiin abwaaninta miraha waaweyn loo ninkii gabayga Allah yo magaalada maxaa wax isu muuqda Allah yo magaalada maxaa wax isu muuqda Allah yo magaalada maxaa wax isu muuqda nan abwaanay wallahi waxa aniga igala yaabadnaa in magaalada aan joogno jooga oo itixaana baa wax ugu yirniyo waxaan galay baa soo wadaa soo may wallahi fanaan baan ahay halkaas uu istaajiyay niman baan la socday aniga iyo nin kale aan ahay wuu naga hor yimi markaas uu istaajiyay wuxuu yiri niyo fanaan baa tahay heesta ila meeris adoo qaaday aan ku arkay heesta kale aan ku arkay nin cod macaan baa tahay YouTube kana waa ka arkay hees baan hayaa in aad heesta qaad wallahi waa macaan tahay ii sheeg baan wuxuu yiri inayahayadun wakaas ninkaas la madaxa la ruuxay inayahayadun maxay tahay inayahayadun markaas aan inta ana bas maxaa dhacay waa wareegnay inta yaabay baa waxaan ku iri jooji de uu joojin waayay de macnaha waa iska uga dhigtay macnaha waa jooji baan horta bal wax jooga markaas jooji markaas aan inay yahay adun baan wax ku dardi maada sugay buu markaas aan waxaan isri adaa ninka ka hortagay bal u kaadi inay yahay adun bartii uu ka sii bilaabay haddana inay yahay adun ba ay ku wareegaysaa ha
nuune nin la yidhahdo kamalaa oo aan aada u salaamaya isagana labadooda waa salaamaya baa inta nooyin buu yidhi matibaa dadka la hortimi ninka waxaan aan dhalay macnaha show nuunu inta qabtay wuxuu yidhi iito markaasuu inan yahay adun baa kala dhamaan waa yidhi orod hees doon hees haatan yaa ugu maamaada marka laakiin ninkaas cod macaaye ninka heestaa qaadaya heestaa qaadaya waxaan ninka heestaa isku doontay ee intaa dadka ku sasabaya ee ku filaysinaya tartiib buu ku oran may saas ma shaafis saas ma waxbu uga dan leeyahay maxaa uga dan leedahay hadda odayga islaanta wax loo saaro noo qarji hada maya aniga nin laba eray hal eray maanta ninkaas abwaan maya marka ila inayahay halka way kaga dhigtay waa ka wareejiyay aad sugaysay dhagta saa ugu dhigaysay abwaan maya anigu markaan dhagta u dhigayay anigu abwaannimo uguma dhigayna waa ka sugayay inuu bal inay yahay anuunbaa keliya ereyada yaale dee ma eray baa jira waa wakaas de soomaali oo dhan abwaaniinta waa kuu sheega aniga oo wax laisku aadsan beer ku qaybsamo barban adii ku siin laa wadnahayga bidixdana waan ku bedeli laa kagana waan la bixi laa allah heesta waa ilaa nin baan ku sasabanayay markaan saa u qorayay jacaylkan isku qornay ham وبار لا أضحك دين ليش دي يا شاف الداي أديك داي marka hawlo laga soo tagay ma aragtay oo hore de laga gaboobay macni waa ayada sameeyay ma laga gaboobay ana soo xasuusinina de adii cimraan waxa u timaadeen in afaarahaygi arimahay hore soo ogaataan laakiin ma hay ina ku baarno maanta laakiin waxa adigu sida aad mid kasta ugu dhageyso inaad bad gashaan ka baqay kaadi marka ana ku aqaan anu mid kasta ma ana abwaanad ana ba ku sheegay ma adu horta sugmaada waa baan mid ma qaada u kaadi hal mid baan ku sheegay waad qaad doontaa hal mid baan ku sheegay heesaha Soomaalida laga bilaabay taas de hadday tiraahdo taa anaa leh waa isa soo afjaraysaa iyada soo afjaraysaa heestaas waxa weeye isoo jibaax muska isoo jibaax tara qodaxay jaftiri mindhayn qodaxay jaftiri jexdaan qaba makiin jexdaan qaba taa bal sheego maynaan gaarin maya taas waa maqlay laakiin meesha lagu qaadiya xataa ma joogin anu waxaana lahayn anu kuma dhago heestaas waa heesihii Soomaaliya la sameeyay waa ku ugu horeeyay ka joog baan lahaa waa ku ugu horeeyay baarlina ka joog baan lahaa moogta aad iyo aad marka horta taa hadday tiri ma qaadin no hadalkeedu in badan bal adigu ba macna runa way adigu ana ku hal hees oo aad u jeclahay haye ayaan ku dhufanaya oo heesahayga kamid ah macna ya ilaahay yaqaan bal u kaadi ninkan heesa mayada leh heesta ma laha heesta bal horta adigu hayga hor imaana bal sug ha qaada ninkaas qaad heesahayga wax badan baa dhunsan dareen lahaayeen miyaanad idirnahayn gacalo dhimadaada wacan inay daawadayda tahay miyay ka daahan tahay miyaadan dareen lahayn miyaadan idirnahayn waxa iskale yaa leh hade jacaylkan ku tiriyaa da ogaan lahaydeen mabasmina qaadam hadda qiira ay qabatay xasuus fashilu caawa wariyaday anigu inima soo aqbalisan ilaa igu kala indha cadaysaane ama iga dhawrta waxa anigu leeyahay ii qira ama iska daa sheekada fashilu maxay tahay beelle cabdi beelle ana u dhibida muusikada ninkan jooga jigjiga sheegi maysid oday garka dhar jigjiga joogso ma sheegaysan jigjiga waa wada ka dheertahay maya daasoo ka gaar way muusigaysa gar dheer way waa qaanaada ana u dhibida ninkaas ya ilaahay yaqaan waaba taqaanay maxaa beenta uga namanaysaa ya waaba taqaanay inuu muusikiisa yahay maxaad garka dheer kala doonta gar xagee buu ku leeyahay da idinku ma taqaanaan bada wixina aqoon baaba ka shaqeynsaanba habeenku saa u tumeeyay ku tirinayaan kurin laxankayga markaan qaado heesta afartii ugu horeysay hal eray baa iga dhimanaada isaga igu daray xataa inraano anu mid baan imika hadda ka dambeeya baarliin horta meel
ereyaan samaynaya horta may jirtay aniga inay iskaga kii dhigto horta anu maba kuu qiri karabe taa markan lahaa heestaa markan keenayay waxaa isla balin taraa taana heestahan ka aqaanay kamid tahay soomaaliya nimankan labadaa nin oo wareersanoo hal xabana tirin karin hal xabana qaadi karinoo isku markhaati furaya horta waxaan ku arkay groupka Berlin waxay leedahay moogtay qolo la yiraahdo groupka boqorada barkaysan walaalahay Soomaali weyn waa jeclaa groupkaas waa group shidan aad u shidan moogtay yes marka telefonka xataa uga soo hadlayna markay arkeen in halkan joogo moogtay warna Cimraan baad ag fadhidaay maada boqorada barkaysan bay gulahayn moogtay walaalahan jeclaa iyadana waa ku soo casuumay xataa waa kuwa mirahayga iyo laxamadayda ku raaxaysto oo dhageysta dadka wax badan been ka dhaadhicin hadda ka hor mataqaana gaalkacayo anagoo joogno maanta meel luuqan ka soo baxayna moogtahay xabada la wala saxbadaynay mid baa madaxa uga soo toogtay mid baa madaxa meesha uga soo taagay halkaasaan ka calaamadeeyay ma ogeyn mi adiga meesha aad igu jeclaatay eedanoo kaara saaran ya oo baar la xaqi baan isku ogeynay xabada xabada gacanta ma gashay ma daabwaanintu ayaga ka qayb qaatay heesaa miyaad arag dagaalka isa dadku kicinayo ma ogid ma war beebaan saarnaa anigu dhishi kama saarneen gaandheri baan ka ahaabe bismillah macnaha beebay gaandheri ka ahayd beebaa gaandheri ka ahayd adigu halkaa igama soo adoo kaarbiin adoo la ordiyay halkaas igama soo arag miya beebe war ku xad halkaas beebe gaandheri ka ahayd baarle halka wala nagu gaadaya naga ilaali bal waxaan ku gaadaya run way Soomaali qofan dad soo lay waa yariya adi cadaan dhaa guduud way ilaa dad soo lay Soomaaliya ma inda gududna ninkaan indhihiisu waa caadi ma Soomaali qof aan wax soo lay waa yari xataa qof inta isku boodan ba dhulka isla dhacay wax soo dilna wasiga Soomaa ma waa jirta xagtimaa soo gaaray xataa annaka dhan waxaan nahay dad halisa waa heshiinayna dad halisa hay jaamacadaad ka soo baxday ninkii aasaasay bariyahan lama hayo la fool aanu ka soo qalan jabiyay sheekadaas hadda balada hawl buu galay waa Axmed Madoobe ninkaas horta ninkaas Madoobe isku bedelay ninka mar waxa ugu dambeysay mar ku Kismaayo ay ugu dambeysay horta soo macawis qabo geed hoos fadhiya ba aniga ugu dambeysay odagaas markaas ay ugu dambeysay jaamacadaad ka soo baxday wata way xidhantay ninka ma aragtay aniga halkaas aan ku gabagabeynay aanu ma soo raadsan in la jaaifaysto anigu abwaanada oo inta soo miraale oo gaandhiri soo ahaan jiray oo ummadda marna isku diri jiray marna heshiisiin jiray ma ahayn aniga inaan kaamiradan hor imaado la aflagaadeeyo anaa xaal isi siiyay iyo ummadda Soomaaliyeed halkaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa hadii ay afaaraha ku jirto Arlin waad mahadsantahay horta fadhigan ka duwan baan kugula kulmi doonaa insha Allah adiga oo macnaa heesayga igu qabsanay may jawi ka duwan kan adoo heesayga buugaag waaweyn ka soo qoray baa iimaanaysa markaas aan kula fariisan karaa muddo dheer baan ku maqnaan doonaa yes marka insha Allah fadhi kale oo kan ka duwan adigu heestii jacaylka hal mar aan ku gabagabeynay heestaas aan soo waday aan lahayd bal hees Imraan hees han ugu tuuro heestii jacaylka heeste jacayl wada jacayl waa wada macaan dumarku he maya macnaa wada heesaygo wada macaan gala farda haddii laga gubo dameer dawada lama gaaray go'aankii hore heestaas waxa weeye hees horta aad alla qadra daahirana u dhiibay heesta intee fanaan baa isku yaa ilaahay yaqaan asxaabay halkaas khaalid ku aanaysan asxaabay madaxayga maxad go'oon madaxayga yarhe wuu wareeray caawa Berlin baa madaxayga qabsatay waxaan eegayaa abwaanimadaas ay calinaysa ma labadan meel baan uga soo harin lahaa kulan Imraan kinin guriga ma yaala wayala alfudol kul milka wayala halkaas ay kaga tagaya asxaabay anana xaal isi siiyay waa mahadsantiin soo xir barnaamijka aniga hadal dambe ma jira aniga qudaydo xabad kinin baan doonaya Imraan barnaamijkan ilaa iyo barnaamijkan inta ku kulmi doona bal asxaabta maca salaam anigu wareeray asxaabay waa idin maca salaameynay inta islaantaydu ma aragtay ay wax beena sheegatay iyo wax sheegtay ana idin ka xalsiyay waxaan ku soo gabagabeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh